wardegdeg ah mas-uuliyiintii ugu badnaa ayaa ka goostay garabka shaqaadan madoobe isla markaana isugu jira saraakiil ciidan gudoomiyaal degmo xildhibaano golo deegaan iyo odayaal dhaqan waxaan kula wadaagi doonaa mas-uuliyiinta ka goostay iyo sidoo kale wasiirka amniga garabka lafta garaan xasan cabdiqaadir oo ku soo dhaweeyay duleedka magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanka Ceeldoon oo ay gaareen mas'uuliyiintaasi soo dhawaada muuqaalka like sar aragtidaada qaybta faalada ee commentiga ku dhiiba hadii aad hore nolo joogtay waad ku maadsantahay hadii aad nala joogin nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran ee markasta hela wararkii warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga wararka naga soo gaaray duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gaar ahaan deegaanka Ceeldoon oo ay fariisimo ku leeyihiin ciidanka daacadda u ah garabka Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen dooyinkii ugu dambeeyna halkaas ku sugnaa howlgalana ka waday ayaa waxay sheegayaan halkaas ay gaareen mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira gudoomiyaal degmo saraakiil ciidan xildhibaano golo deegaan iyo odayaal dhaqan kuwaas oo ka soo goostay garabka aadan madoobe isla markaana sheegay inay ku biireen safka Cabdicaziis Xasan Maxamed Laftagareen maalmo ka horna ka baxay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo kordhayay mas'uuliyiinta ka goosanaya garabka shaqaadan madoobe ee ka baxaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Koonfur Galbeed isla markaana garabka Laftagareen ku biiraya mas'uuliyiintan markii ay gaareen duleedka Baydhabo gaar ahaan fariismaha ciidanka Laftagareen waxaa halkaas ku soo dhaweeyay wasiirka amniga garabka Laftagareen Xasan Cabdiqaadir oo sheegay inay soo dhaweynayaan saaxiibadooda si ay qayb uga noqdaan halganka waxaana hadaladii wasiir Xasan Cabdiqaadir ka mid ah sidatan lanaha ka dhawaada taliska ku meel gaarka ee howlgallada dawladda Koonfur Galbeed ku socdo ciidankii Kingan Koytan martamihiidin dad kala mankoyn oo lumeeli hata roogto iyo kula qobsadaasan saraakiil badan ee horeyninka Koyti oo military police le nabad sugid le ciidankii anfac le ciidanka booliiska gaarka le maadaama walaa uu shishaddeedani markii Baydhabo la qobday dib isu aruurintii ciidanka yalla ka jaray meel faylan wal maraha meelaha roogto kula qobsado wali rajeena magaalada Baydhabo iyo deegaanada Koonfur Galbeed oo nusuga hayto xoreyntii in sadanka dhaqsiya badan nin hergalu ilaahay idin sheeg intii uu doorkan hagalnay lan kasta oo siyaasi ah oo danleey oo noo horjeedo oo fadaaw deegaanadan in la haysado maga badan nimbi marwalina na arhay new shabaab la sangaray marwalina na arhay al-shabaab ka biiran marwalina na arhay al-shabaab iyo ku barbar dagaalamayan marwalina na arhay walkast walinka dambeeyay lankii walaalkan haayay usoo boqol garas ilaa Ethiopia galaaw lahanagi wala ku raal gareen horta ugaaskan si guud ku raal garayaan ugaaskii digil miraflow markii la ku taaway xilkuus hata afhayankan haayo in lankii walaalkan haayay noo tabay usa wala basho ku kaadala horta eedan ku xogna usoo hatanka dambeeyay wala arhay shabaab ma la shaqeeyaan ma fadaan markii hadaladiis fiiradaan marka lankii boqol garas ku nagay ugaas Xasan oo Nairobi uu ku kooyo soo idis roogu markii uu fiirsado ay dhibaatada dadka sheeyla ka soo biyahay markii uu fiirsado ay lankii hanagay afar bilood shan bilood inta ka haayo eedam ku xogno walaa yaro hata lan sheegay oo usa mayla raay meelasay la bahay wal problem ma la sataliya sheegayaan qaraariilo to ku goti malin jiisaw Koonfur Galbeed shakhsi ma la qabiil ma la wal gaar ma la Koonfur Galbeed la raay ummutar Koonfur Galbeed leh dawladdu madaxweyne la wasiir la wal kastelat dadkan tusurugna dad qabiilana ma dad wal kale ana ma si guud marka wali lana wal kastalna tilmaamo wali diyaarana inuna dhegna waana aragna waana noohin howlu una ka jarno oo waajibka una dhaaranay oo difaaca dalkan diintis idad shay inuna injeen lan kasta wal sheegona la dhugunsido horlonku dareero taasa waajibna wada taasa horey hanka dhaaranay kitaab quraan hanka marni taasana mas'uuliyiintan iyo mas'uuliyiinta kale oo dambeeyay ciidankaanaba laslagaba